السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waxaa la yiraahdaa Mahdi Ahmed Abdi. waxaan ahay dean programka dhiga the dental laboratory technology. dhalinyaro ay timi isxilqaantay oo arrimahan doonaysa inay fursad u siiso high schoolka ardayda ka soo baxaysa inay meel goob ay helaan ay ka baari karaan facultyada kala duwan oo waddanka maanta ka jira. haddaan xoogaa yar saakiin sheegaan waddanka Mareykanka 30 sano deganaa waxaan ku shaqeynayay fiilka dentistry ilaa 25 sano. waxay kala leeyihiin specialties kala duwan, waxay leeyihiin waxay baranayaan dadka ilka wada maqan yihiin si loogu bedelo, waxay baranayaan qofkii hal ili ka maqan yahay ama laba ama saddex oo qaarna ku jiraan qaarna ka maqan yihiin intii ka maqan si loo bedeli lahaa. waxay bartaan ilkaasi loo toosin lahaa iyo cilmigii loogu talagalay lahaa markii ilku qasan yihiin si loo hagaajin lahaa. iyo waxyaalaha kala duwan saameeyay afka nooc kasta ha ahaatee way la socdaan. waa hawl ay ku tala jiraan ay baranayaan, laakiinse barashadu waa meesheedii, laakiinse gacantuna waa ka duwan tahay. experience iyo khibraddu waxay imaanaysaa markuu qofka fiilkii uu galo uu hawshiisii uu gacanta saaro uu sanad iyo laba ka shaqeeyo, markaasuu wixii isku xiri karaa wixii la soo baray iyo gacantiisa isu imaanayaan. hadda waxa la soo baray aad ugu weyn gacantooda waxa way gacantooda wax yar ayay sameeyeen, laakiinse wax kasta oo la daba taagan yahay oo laga shaqeeyo natiijo weyn baa laga gaaraya. marka ardada ka soo baxda programkan waxaa hubaala inay noqonayaan arday isku filaasho gaartay oo meeshii ay dunida tagaan Soomaaliland maahay meeshii ay dunida ka tagaanba awood u leh inay la soo baxaan macaashkoodii iyo wixii ay ku noolaan lahaayeen. programkan wuxuu kaga duwan yahay programada kale ama facultyada kale. waxa weeye ardaygii noo yimaada wuxuu baranayaa habkii iyo nidaamkii ku saabsanaa sida loo habeyn lahaa ama loo sameyn lahaa ilkihii bini aadanka oo qofkii hadduu ilka beelo si laboratoryga loogu sameyn lahaa. taa waxaa usii dheer ardaydu waxay baranaysaa habkii ay patientadii ama bukaankii ay u wareysan lahaayeen, habkii ay u ogaan lahaayeen qofkaas xanuunka haya nooca uu yahay. waxay baranayaan haddii ilaahay ku rayo cudurrada gala ama saameeya afkeena iyo ilkaheennaba. waxay fursad u leeyihiin inay iyadoo theory oo qoraalna la siiyo iyadoo practice oo labadii dhanba laabkiina ka shaqeeya oo hawshii qabanaya. haddii qofkii dheeraad ilig buu u baahan yahay iligii waa in samayntiisii aad barataa, waanaad qalabkeedii haysataa, waanaad dariiqeedii martaa. intaba waanu samaynaa. taa waxaa usii dheer patientadii ayay nala joogaan markii aanu arkayno oo ay examinationkii ayay ka qaybgalayaan. assistance weeyaan oo wayna caawimaan. waxay barteen oo hadda kuwa ugu dambeeya hadda ku jiraan sidii ilkaha loo sifeyn lahaa, ilkaha loo saari lahaa, patientkii loo suxin lahaa haddii ilaahay kuu run yahay. iyo qofkan waxa uu u baahan yahay iyo wacyigelin. dentistry marka laga hadlayo caafimaadka ilkaha, caafimaadka dhan waa wada noocaas. runtii 80% qofka bini aadanka oo bukaanka ay gacantiisa ku jirtaa. qofka hadduu caafimaadkiisa ka shaqeeyo oo ilkiisa ka shaqeeyo oo cadaydo oo waxa macaan oo cunida caafimaadkiisa ugu wanaagsananaya. laakiinse haddii qofku uu isdayaco dhibaato imaanayso waxay noqonaysaa in qofkii ama wax loo qabto. wax loo qabashada waxa ka mid ah qofkii in la wacyigeliyo oo loo tilmaamo habkii ugu wanaagsanaa. ardaduna kaas way barteen oo waa waxay qabanayaan. specialtyga aanu ardada ku barno waxa ka mid ah markii la kala qaybiyo hawlaha ama wax loo patient loo qabanayo ama qofka bukaanka ah. midna waxa leedahay removable, midna waxa weeye waa fixed. removable waxa weeye kan la saari karo, midna waxa weeye patientkii waa wixii loo sameeyay uu saari karaa, uu nadiif karaa, uu ku xishin karaa. oo taasi waa dadka waayeelka ama dadka ilkuhu ka wada dhacan. hadda waayeelkii dad ka yaryar oo ilkii ka wada daateen ayaa noo yimaado qaad iyo saxa xumo ay wadaashay. marka waa qayb specialty la yiraahdo removable dentures. waxa weeye waa kuwa la gasho lana saaro. marka kuwaas waxay u sii kala baxaan labo. dadna ilkihii dhan ka wada dhamaaday waxay u baahan yihiin qalka sare iyo qalka hoose in laga bedelo. dadna ilkaha ku haray. marka haddii qalka sare iyo qalka hoose labadaba la bedelayo waxa la yiraahdaa full denture oo labo patientkii labadii waa loo sameeyaa. haddii ilka ku hareenna ilkihii ku haray ayaa loo isticmaalayaa inay u noqdaan baroosin ama meel denturekaas uu qabsado oo partial denture baa la yiraahdaa. specialty kale oo taa ka duwan oo iyaduna ay halka ka bartaan waxa ka mid ah waxa la yiraahdo fixed
bridges fix waxa weeye qof aan ilig ka dhicin laakiin si iligiisa u baahan intuu iligi jabay in dib loo soo celiyo haddii wax yar ka jabana dee si sahlan ayaa loo soo celin karaa haddii wax weyn ka jabayna uu ka maqan yahayna dee wuxuu u baahan yahay in dib loo soo dhiso ama crown cusub loo sameeyo kaasuna hab dheer iyo dariiq dheer buu leeyahay oo runtii aan aad u yareen oo chemistry-ga qofku waa inuu garanaya waa inuu physics-ka garanaya waa inuu anatomy-ga garanaya waa inuu garanaya qalabku isticmaalaya waxay yihiin iyo materialku isticmaalayo qof bini aadan afkiisa ayaad wax gelinaysaa xajiin buu keeni karaa metalka aad gelinaysid ma yahay compatible qofku ma ku yahay waxyaalo badan oo ardaygu uu u baahan yahay inuu fahansan yahay materialka inta uusan gacanta gelin ayaa jira oo faculty aad u ballaaran macrana bridge baa la yiraahdaa kaasna waa meeshiisii waxaa kaloo jira orthodontics wax la yiraahdo faculty ah oo loogu talagalay ciyaalka dee markay yar yihiin dee ilkahooda aad u qasan yihiin oo dee waxyaala yaab la halka dee ilig dacwo yiraahdaan oo caruurta beelkii ka gurahayaan oo runtii iyagaan fahamsanin wax ka dambeeya marka dhibaatooyin bay keenaan noocaas oo kale iyo caruurta runtii ilkahooda aad u qasan yihiin kuwaasna waxa weeye ilig la saaraya maaha ilig la gelinaya maaha waxaa la toosinayaa ilkihii qofkii meeshii qaldaneed ka soo baxay ayaa waayara lagu xirayaa birahaas soo celinaya oo meeshii loogu talageynaya iyaguna waa faculty kale oo specialty kooni lagu gaari karo maxillofacial surgery baa jira laakiin taasi waa wax naga culus oo hadda qalabkeedii ma hayno iyo meeshii aan ku qaban lahayn laakiin waa faculty kale oo jirto u baahan inaan maalin maalmaha ka mid aanu gaari doono haddii Ilaahay yiraahdo programka goolkiisu wuxuu yahay oo aan doonaynaa inuu noqdo caafimaadka wadanku aad iyo aad u liitaa takhaatiir badan baa joogta laakiinse waxaad moodaa inay farmasiyaal umada iibinayaan mid kasta waxun buu qoraa waxaanu doonaya dad ajnabi oo meesha jooga ardadeenna waxaanu ku tala jirnaa oo aan filaynaa oo aan ku guubaabinaynaa marka ay soo baxaan inayan iyagoo shaqo doonane ee iyagu dad shaqaalayaan waayo waxay noqon doonaan dad farsamadiina gacanta yaqaana dadkiisii loo qaabilana yaqaana waxaan aad iyo aad ugu dhiirinaynaa maadaama ardadu ay cadadkooda usi yareen in ay wadanka ku faafaan oo in Hargeysa kaliya ay joogin waayo Hargeysa waa magaalo kaliya wadankuna Hargeysa uu ka weyn yahay waana loo baahan yahay baahida ugu weyn oo maanta loo qabana waa gobolada maxaa la yiraahdaa dibadda ah in la tago oo laga bilaabo oo iyagoo iskaashanaya ay xafiisyo noocaas iyo klinika noocaas ay meesha ka sameeyaan waad mahadsantihiin